بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا ميل كستو جوجتان كسر دوادا برنامج مع عصب وهذا هنو كلا يدوغا برتين برتنا قضب عيسى بدنا يالا بدين كوسو قد بنا أرورتنا قضبات كداوان دونتان برنامج مع عصب وعاكمدا حديقها بريمير ليغا درباب بالله بين ويراركو قادا مامولكا iyo waliba xukuumadda dalkaasi sababa ku aadan kubadda in dib loo soo celiyo waxaana Dani Ruus uu isagu yiri waxay ka hadlayaan kubad dadkana nafsadooda ayaa qatar ku jirta sidoo kale Kylian Mbappe oo la fajacay warkii uu ka maqlay club kaasoo aabihiisu u sheegay inuu doonayo ninkan inuu keeno garoonka Anfield ee magaalada Liverpool warar kale ayaa idinkaga haya Barcelona haddii hoggaanka xitaa ay hayso annaga oo Real Madrid ayaa ka fiican sidaas ayuu leeyahay Thibaut Courtois warkii uu isagu xalay toolo yiri ayaan ku hayaa warar kale oo ku saabsan naadiga kubadda cagta Liverpool oo xadgudub ihaano iyo bahdil dareemaysa kadib markii taageerayaashooda lagu sheegay kuwa aan qaanuun ka dhowrin isla markaana inta badan khilaafka jecel oo bandowgii xitaa aan ixtiraamaynin wararkii Liverpool iyo waliba ninkii Werner ahaayeen kugu haya naadiga kubadda cagta Shayatiin al-Humur waxa uu heesaya ninkii Jack Grealish Madridna geeri kala baa soo gashayo shirbay naadiyada Ingiriiska yeelan doonaan inta ay ka badan barnaamijka aad ku daawan doontaan suuqii kama marna anigoo Cabduqaadir Qayska idin soo saaray meel kasta oo aad joogtaan subax wanaagsan daawadahan u jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube fadlan furo gambaleelka digniinta hore haddii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad searchinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh aad baad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub kooxda kubadda cagta Liverpool waxay noqotay midii ugu farxadda badnayd isla markaana xiriir kubadda cagta wadanka Ingiriiska markii si rasmi ugu dhawaaqay ma jirin koox ka farxad badnayd sababtoo ah dadaalkii muddo ay ku soo bixinayeen oo ay u soo kufayeen u dadaalayeen ee markaas wax walba ugu sameeyeen oo ay ku doonayeen sanadkan 30 sano kadib horyaalka inay ugu guuleystaan ayaa hadda hal bacaad lagu noqon lahaa naadiga kubadda cagta Liverpool marka waxay noqotay mid ugu faa'iido badan oo way jiraan koox kale oo Champions League u dagaalamaya laakiin iyagu horyaal dan kama laha Liverpool baa ka qasaara badnaan lahayd hadii la dheelaa horyaalku waa la kansarayo Liverpool waxba lama siinayo laakiin kooxiyo idilba waxay iyagu u doodayaan kooxdan la siiyo inkastoo la sheegay garoomada in lagu dhameyn doono haddaba Liverpool si weyn bay ugu farxeen baa la yiri bayaankii la soo saaray FA markaas xalay toole iyo waliba markaasi warkii dawladda ee ka horeeyaba intuu waxa qalinka lagu duugay inaysan dhici doonin in la kansaro xilciyaareedka isla markaana garoomada waa lagu dhameynaya baa leeyahay Liverpool macnaha waxay tahay ugu yaraan ma heli doontaa reer Liverpool xidigiini oo dhex taagan markaasi taageerayaasha dhexdooda kuwaas oo koobabka la siinayo iyo abaalmarinada bilada kale laakiin hadda waxa lagu leeyahay Liverpool hadda iyadu waxay u baahan tahay 6 dhibcood si Premier League ugu raaxaysato ka waran 6 dhibcood kaliya ayay u baahan tahay Liverpool si iyadu ay ugu guuleysato ayaa lagu leeyahay horyaalka marka way soo shaqeysteen qarka bay u saarayeen inay qaataan marka wax kaga farxad badan ma sii jirin baa leeyahay shalay toole sababtoo si weyn bay u farxad gelisay go'aanka rasmiga ee markaasi maamulka Premier League ay ku gaareen geesa kale naadiyada wadankaas Ingiriiska iyo markaas laacibintoodu sidoo kale waxa jira gudiga Premier League ayaa kulan markaas yeelan doona ayaa lagu leeyahay isla markaana tan iyo markaas bishii Maars kubad lama aragba sida markaas daawanaysan iyo wararka baad kula socoteen kubadu way iska taagnayd Daily Mail waxay tilmaamaysaa labada cishay soo aadan in Premier League masiirkiisa laga arinsanayo Premier League naadiyadii iyo laacibintii ay ku gorfeen doonaan isla markaana muuqaalka ayaa lagaga shiri doona lagu leeyahay maqal muuqaal ayaa la isku arki doonaayo markaana waxa laga hadli doonaa protocolka lagu dhameyn karo iyo qaabka lagu soo gabagabeyn karo sidoo kale waxa kani uu imanaya markii silsilado go'aana ay ka soo baxeen dawladda Britain iyo waliba Premier League sidoo kale laacibinta hadda waxay ku sheekeysanayaan gruubyo bay sameysteen markaas WhatsApp ka bay kaga hadlayaan si weyn bay uga baqayaan baa leeyahay isla markaana aad iyo aad ugu ma faraxsano waxana leeyahay waxa suurtagalaba inay u midoobaan laacibinta isla markaana mushkilad kale halka ay ka dilaacdo waxa jiray naadiyo doonayay markaas xilciyaareedka garoomada dhexaad inaan lagu qaban laakiin dawladda waxay ku adkaysatay in markaas
markaa tartamada la dhamaystiri doono dood kale aysan ka jiri doonin لاعبينta wadankaas England waxa laga baqayaa in iyagu ay u midoobaan isla markaana kacdoon ay sameeyaan mushkilada ugu weyn ee markaas laga baqay waxay tahay xidigaha iyagu in si weyn uga soo horjeestaan waana wax markaas la sugayay hadaba Dani Ruiz ayaa lagu leeyahay xidiga kooxda kubadda cagta marka Newcastle ayaa caradiisa qarsan kari waayay markaana ku qaraxay Premier League dawladda ayuu si adag u weeraray waxaana uu sheegay tarinaysan macquul ahayn go'aanka ay qaateen ay tahay mid halis gelinaya dadweynaha waliba caabuqa corona waxa nadiidu ay ka cararayaan markaasi qasaaraha gaaraya isla markaana waxay doonayaan kubadda la soo gabagabay laacibintan waxay leeyihiin wali lama gaarin waqti markaasi dadka lafsadooda halis la gelin lahaa sidaas daraadid halis la gelin lahaa dadka lafsadoodu iska suga isla markaana lama gaarin baleey xukuumaddu wuxuu ku sheegay inaysan tan macquul ahayn talaabada ay qaadatay shirada mir ayaa warkiisa daabacday wuxuu leeyahay xukuumaddu waxay doonaysaa kubadda in dib ay u soo celiyaan isla markaana kulaha macnawiyaadka dadka ama dadka niyadooda nafsadoodu in ay markaa sare u qaad ay doonaysaa waraniga wax muhiimad ma siinay buu yiri macnawiyaad iyo waliba markaa dadka sare loo qaado lafsadoodu wax muhiimad igama garan buu yiri maxaa yeelay dadkii baa qatar ku nool lafsadoodu naftii baa qatar ku jirtay maxaad adiga nafsadooda ma aragtay oo aad leedahay macnawiyaadkooda iyo nafsadooda baan sare u qaadayayo maxaa yeelay dadkan hadii markaas iyadoo isugu yimaadaan ama kubadii la soo celiyo saameyn adag ayaa yeelan karaysa inkastoo dawladda ay sheegtay in markaas aysan jiri doonin markaas garoon taageerayaasha ay iman doonaan marka wuxuu leeyahay isagu dad buu ku gambanaya marka wuxuu yiri معقول ما هو يري وحيابها أي مركز يجو كوفا كريان حكومة ودن كبريتن سمركان وحو يري وار وحو يري لعنت هذه كل عظم هاي واحد مالها الله وريجيسان أدي أدبو عروض وحنا تلمامية وبدأ عكت إن لجها الله ما بقى هم بيري وقت هذا اللي جوجو سياسة دردد وحقات اللي تا أيام أركي يا بولاي هاي دولة ودن كبريتن مركز كعظم بيوجهيسا لاعبين تنا سوين بيوقع عيانو حدي مركز لجو مجعبو أتقننا كحض كبد عكت نيوكاسل داني روز سي أدك بقوة الرياض نادي كبدا عقد مدريدنا waxa ka geeriyooday laacibkii markaasi safkeeda ka tirsanaa ee haliigadi ahaa Ico Aguilar ninka la yiraahdo Aguilar hadaba naadiga kubadda cagta marka Madrid Aguilar ayaa ka geeriyooday wuxuu kamid ahaa xidigii ugu waaweynaa ee kooxda kubadda cagta Madrid safkeeda markaasi isagoo ka soo ciyaarayo waliba 770 sano ayuu jiray ninkan waliba bayaan rasmi ah soo saartay naadiga kubadda cagta Madrid waxay kaga tacsiisay isla markaana cushaaqdeedu ay la wadaagtay murugada ay dareemayso kadib markii Madrid uu ka geeriyooday Ico Aguilar hadaba bayaanka barta rasmiga naadiga kubadda cagta Madrid lagu baahiyay lagu sheegay in si weyn uga xuntahay Madrid isla markaana si weyn uga murugsan yihiin gerida ku timid Aguilar wuxuuna kamid ahaa baleeri mid kamid ah kuwii ugu waaweynaayo kubadda cagta 17 ilaa iyo markaas 19 iyo safka markaas Madrid ka tirsanaa dadku idilba waxaan la wadaagaynaa baleeri cushaaqda Madridista iyo waliba xaaskiisa ehelkiisa iyo waliba caruurtiisa waxaana loo sheegay markaas si weyn iyagu murugada ay ula wadaagayaan ninkan waxa la tilmaamay 190 kulan 50 gool buu isagu dhaliyo 5 tartan buu kula guuleystay waliba laba koob boqor ku jirtay waliba xulka qaranka wadanka Spain ayuu ka tirsanaa 17 sano ayuu ku geeriyooday ayaa lagu leeyahay نادي كبد عقد نيوكاسل وحلا قرشيني مركز gacanta Sacuudiyiinta inay gali doonto isla markaana sanduuqa wadankaasi iyagu halka ay kula wareegi doonaan laakiin waxa lagu leeyahay dib u dhac ayaa ku iman kara isla markaana ilaa hadda mas'uuliyiintu go'aan rasmi ah iyagu kama aysan gaarin yaallay sabab ku aadan dokumentiyo la baariyo xaalkooda la socanayo hadaba waxa la tilmaamayaa 300 milyan gacantooda inay ku mari doonto jiradada san waxay leedahay dib u dhac ayaa ka dhalan karaya isla markaana arinta ku saabsan marka Newcastle markaas iyadu ay la wareegaano sanduuqaasi gacanta ku dambayso marka waxa lagu leeyahay kubadda cagta Newcastle waa la dhisi doonaa xidigo culus oo markaas ay Felipe Coutinho, Vidal, Nicolas Gareth Bale, James Rodriguez iyo kuwa badan baa la xiriirinaya xitaa Igalo wuxuu ahaa xalay toole mid la xiriirinayo marka waan arki doonaa naadiga kubadda cagta Newcastle marka ay dhisto waxay noqon doonto hadaba xidiga lagu magacaabo Jack Grealish isagu cishqiga uu hayo kooxda kubadda cagta Manchester United ma qarsan karayo baa lagu leeyahay waliba markaas ninka mar walba waxa arkaysa isagoo muujinaya markan bartiisa markaas Instagram-ka iyo isagu muujiyo United ayaa lagu leeyahay ninkan oo isagu dariiqad aan toos ahayn ayuu markaas isagu ugu muujiyay United markaana sida cishqiga ugu hayo waliba waxa la tilmaamayaa naadiga kubadda cagta Manchester United xidigan ay doonayso inay ka dooratay ninkii markaa James Maddison ahaa Leicester City waa soo reesay waxay Leicester aniga haysa baa leeyahay Leicester ka James Maddison kaaga marka ninkan bay doonayaan baa ninka markaa isagu waxa muujinaya marka xidigan isagu inuu cishqi weyn u hayo markaana bartiisa markaa rasmiga Instagram-ka toos ahayn isagu markaas uga hadlay hadaba waxa la soo saaray Premier League xilciyaareedka xidiga baa la wareegay saad ogtiin xidigo baa kooxo kooxoodu saf kalena markaas iyagu hadda ku biiray kooxay la joogan ileen kooxo kale bay ka yimaadeen
xidigaha tobanka ee bandhiga cajiibka sameeyay markaas la soo saarayo xidiga koowaad hadii uu noqday ka waran Bruno Fernandes waa laacib cajiib baa lagu leeyahay wuxuu kamid yahay tobanka xidiga markaas ugu fiicano hadaba Bruno Sporting Lisbon buu ka yimid waliba ninkan markii uu yimid kooxdu idil waa qasay waliba waqti qurux badan iyagoo markaas iyagoo maray isla markaana kooxda Premier League midaan gool ku caawi midaan ka dhali midaan rigooray ugu shub ninkii waaba tabar loo waayba waxaas uu sameeyay waxay tahay wax cajiib waa la yaabayo waliba naadiga kubadda cagta Sporting Lisbon ayuu markii uu ka imanay waxa la isla ninkan waqti dheer ay ku qaadanaysaa meeqa u baahday mataqana laba kulan saddex kulan kadib waxa arkaysay ninka waa waaye bandhigiisu waaba la qabsaday waxa la arkayay cajiib buu ahaa Danny Ings ninka la yiraahdo naadiga kubadda cagta Southampton ayuu safkeeda markaas ka tirsan yahay wuxuu kamid yahay xidiga ku soo beeray waliba bandhiga cajiib buu la sameeyay isaga waa laga yaabay xilaareedkan waliba Southampton aad bay u liidatay marka bilowga xilaareedka Leicester baa inta qabatay sagaal gool ku dhufatay markii dambe Leicester tii la qabtay dhagax lagu dhuftay marka kooxii weynaa waxa kooxii lafta dhunga ugu noqotay hatta Liverpool ay lafta uga adkaaday inkastoo afar gool bay ka dhaliyeen haddana soo wadadaashay bilowgii hore qaybtii hore ciyaarta hadaba Gary Cahill ayaa kamid ahaa oo Chelsea heshiis hore uga tagayo naadiga kubadda cagta Crystal Palace ayuu markaas isagu hadda u ciyaara Mohamed Mustawiisu Martinelli ayaa lagu leeyahay isaguna Arsenal buu isagu u ciyaara naadiga kubadda cagta Everton naadiga la yiraahdo ayuu ku soo biriyo naadiga kubadda cagta marka Gunners Arsenal buu ka tirsan safkeeda Harry Maguire United 78 milyan buu ugu soo biray lagu leeyahay ninka organiga Sterling kan absolutely fantastic buu noqday United laakiin wali waxa uu leeyahay laacibka ugu fiican laakiin mustawa hadda soo bandhigay United waa wanaagsanaato United tii hore oo markaas iyadu ka sii darneedsan United marka laga hadlo xiliyaareedkan iyo tii ka horeeyay hadaba James McCarthy Crystal buu ka tirsan yahay ninka la yiraahdo waa Basaki iyo waliba Mobay iyo waliba xidiga kale ayaa kamid United iyo Brighton oo kala ciyaara Watford Ismail Sarr reer Liverpool baa garanaya weydiiyay hadii Ismail Sarr ma taqaanin dhaha reer Liverpool Ismail Sarr waa taqaanaa Soomaa ninkan waxa uu ahaa habeenkii markaas ma hilmaami doontaa maxaa yeelay habeenka goolasha marka goolku idinka dhaliyay waliba waxa uu sameeyay mucjiso bay ahaayeen sababtoo ma hilmaami doontaan goolasha ciyaarta idinka dhashay hadaba naadiga kubadda cagta Liverpool Kylian Mbappe markii loo sheegay wiilku waa fajacay wiilkii waa yaabay waa kala badbatay ma aniga Liverpool ma ninka kursiga ku fariisan habeenkii sariirta waa la kululaatay waxa waaye maxaa ninkii talaab waaba qaadi waayaba maxaa yeelay sariirta waa kululaatan ku soo xasutay midba waxa hadda kor waxa loo soo diray waraaqihii marka 2002 meelaha markii email-adan bilaabanayeen waan la yiraahday adiga waxaad ku guuleysatay 70000 oo pound oo Ingiriiska marka waxaad ku qaadanaysaa lacagta oo habeenkii dhan ma hordin ninkii sariirta kula la noqotay marka inta uu gadooma halka uu gadooma ilaa waxa qorshe u bilaabay tan inteegiisa maxaad ku sameeysaa mashruuca hadaba maalintii kale waxa la yiri soo dir $70 si ma aragtay adigu lagu soo dir lacagta post markaas buu ku yiri saas miyaa wuxuu yiri 10,000 oo kamid lacagtaas orfanka adduunyada ku sadaqaystay marka orfanka adduunyada ku sadaqaystay ninkii ahaa marka waxa leeyahay Kylian Mbappe sariirta la kulaatay habeenkii dhan hurdin baa leeyahay xaalkiisu ma qurux badno hadaba naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Liverpool ayaa la xiriiriyay xidigano sheekadeedu marka waxa lagu leeyahay ninkan ayay wada gaartay waxay doonayaan ninkan garoonkooda ay keenaan laakiin marka loo sheegay baa leeyahay xidigan Klopp inuu doonayo aabihiiba warbaahinta ayaa tabisay aabihi uu la xiriiray baa leeyahay Klopp baa la soo xiriirayo waxa laga weydiiyay ninka Kylian Mbappe ah laakiin marka loo ninka waa ka fajacay waa la fajacay waxan oo Klopp ma aniga doonayo way ninka aad buu xiisay bale waliba xamaasadiisu cajiib ay u noqotay maxay Liverpool maanta Liverpool 6 sano ka hor ma Liverpool maanta waxa waaye boqorada Yurub naadiga haysata markaas koobkii UEFA Champions League iyada ayaa koobka dunida la haystay indhaha marka inta taagneeday meelaha oo indhaha taagayeen ayaa la shaqaystay Liverpool marka Klopp ninka la yiraahdo Klopp waxaan doonayaa buu leeyahay Mbappe marka Mbappe ayaaba ma Liverpool marka Liverpool baaba maaragtay ninkii ka yaabaya ninkii markaas ahaa Kylian Mbappe nadiga kubadda cagta ee markaas iyadoo Liverpool waxay doonaysaa Kylian Mbappe inay keento saas waxa ku warantay shabakada lagu magacaabo Lotten Sport bishii hore bay sheegtay marka club inuu la xiriiray bihi Wolverhampton ninka la yiraahdo Kylian Mbappe laakiin hadda waxa la tilmaamay 250 milyan ka badan markaas iyadoo inay ku bixi doonto inkastoo aysan sahlanaan doonin Liverpool marka waxa lagu leeyahay xidigan way doonaysaa ninkana club waxa hadda la tilmaamay markii isagu uu maqlay aabihiina uu sheegay wiilkaygiiyo club baa ku rabay ka waran markii la yiri
xamaasadiisu aad bay u sareysay isla markaana si cajiib ah ayuu u xamaasaysnaa sidaas Loten baa markaasi warkaa soo dusiyay waan arki doonaa Liverpool iyo waliba markaa ninka Kylian Mbappe halkii sheekadoodu ku dhamaato ninka kooxda kubadda cagta Real Madrid isagu ciyaara Thibaut Courtois waa nin kale oo dhib badan isagu nadiga kubadda cagta Madrid ayuu isagu safkada ka tirsan yahay BK amal buu mar walba isagu daldalmaayo waa meelaha waa ku badan yihiin BK waad aragteen Ramos waad aragteen Courtois waad u jeedaan rag badan oo markaas afkooda isqaban baa jira Messi iyo Hawaii ma dhib badna Courtois wuxuu ka hadlay nadiga kubadda cagta Madrid iyo waliba hadalkii uu ka yiri horyaalka wuxuu yiri anigu waxaan iri horyaalka yaan la siinin Barcelona ee ma dhihin Real Madrid la siiyo anigu waxa iri buu yiri horyaalka hadii la kansalo Barcelona la siin horyaal ee hal la kansalo la yiraahdo xilciyaareedka waa lagu kala tagay sanadka dambe la isugu yimaado shabakada RTVE ayuu la hadlayo hadaba sababta waxa la yirinayo soo wada adiga aniga ma dhihin buu yiri Real Madrid koobka lagu guuleeyay laakiin marka laga hadlayo qaabkan u ciyaarina marka la fiiriyo tartankan ku jirno anagu waxaan dhigi kareynaa buu yiri naga horeeyaan iyagu marka laga hadlayo laakiin wadciga hadda aan ku jirno annaga ayaa ka fiican Barcelona waan ka fiicanahayo maxaa yeelay 2 dhibcood bay nooga haysaa war 2 dhibcood xitaa nooga haya sayelisiin reer Barcelona madileysiin maya waxay leeyihiin annagu waa idinka fiicanahay warkaas jawaabteedu idinku idin yaala ma ahan mid yaal hadaba Liverpool in la xumeeyay oo markaas iyadu si wanaagsan aan markaas loola tacaamulay dareemaysa Liverpool baa lagu leeyahay jamaahiirteedu si qurux badan loola tacaamulin nadiga kubadda cagta Reds ayaa la tilmaamay 80 iyo markaas 2 dhibcood bay leedahay 6 dhibcood bay u baahan tahay iyadoo sidaas soo dadaalay ayaa lagu leeyahay jamaahiirteedu iyagu maaha kuwa markaasi talaabooyinka dawladda ugu talagashay shacabka garoon in looga hortago kuwa raacaya waliba waxa la tilmaamay garoon dhaxdhaxad iyagu in la ku ciyaari doono garoonka Liverpool ama lagu soo dari waayo garoonka Liverpool sababtoo dawladdu waxay idin ku eedeynaysaa taageerayaasha reer Liverpool kuwa meel fadhinaya miidin 30 sano ayaa waxa la idin yiri koob la'aan ba ahaydeen sanadkan waali ay idin ka taagantaa baa la yiri maxaa yeelay garoonka iska dhaaf jidka xataa inay istaagtina laga baqayaa dawladdu marka waxay ku eedeysay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool inaysan ahayn kuwa markaas nidaamka raaciyo guriyaha joogaya xitaa waxa leeyahay horyaalka soo celintiisu kuwa Liverpool waxay iimaanayaan garoonka banaankiisa garoonka muudidina banaanka guriyaha meesha ka dhow koraya xagga ka soo daawanaya adiga nin gurigaas ka daji adiga waa kaas dheen maxuu ahaa ma daawan kartid marka reer Liverpool waa laga yaabay dawladda marka waxay leedahay kuwan waxa sanadkan kuwa dadka halaagi rabo way laakiin Liverpool maamulku waxay u arkaan baa leeyahay talaabooyinkaas iyo hab dhaqanka in iyagu lagu xumeynayo isla markaana iyagu awood ay u leeyihiin inay xakameeyaan xaaladda isla markaana ugu yaraan taageerayaashoodu ay ka dhaadhicin karaan inay banaaniyada isku soo bixin marka anaga maxaa noola xumeynaa bay leeyihiin oo aad u leedahay taageerayaashoodu guriyaha bay korayaan oo maaragtay jidkii bay wareegayaan warana la kaana laga daayay bay leeyihiin ninka la yiraahdo Ralph Rangnick hore buu ugu digay ninka lagu magacaabo Timo Werner wuxuu yiri Liverpool ha ku beerinayo anigu meel joog hadaba shabakada Bill ee wadanka Jarmalka ayaa warkiisa daabacday hadda waa uu hadlay mar kale ayuuna ka hadlayaa wuxuuna ka hadlayaa nadiga kubadda cagta Liverpool iyo suurtagalnimada xidiga Timo Werner iyadoo inay qaadan karayaan jirada Bill ee wadanka Jarmalka ayaa daabacday wuxuu yiri aragti aan markaan ka hadlayno nadiga kubadda cagta Liverpool munaasib uu ku noqonayaa xidigan wuxuu yiri isagu in badan ma jeclo kubaddu inuu haysto in badan kubaddu inuu haysto la wareego maanta oo dhan ma jecla sidaas daraadeed nadiga kubadda cagta Liverpool qaabkay u ciyaarto waxay tahay qaab kooxda kubadda cagta Leipzig shabahaysa hadii halka la geeyo waa u qarxi doona buu leeyahay maxaa yeelay isagu waa mid degdeg badan dhaqdhaqaaqiisa weerarada halista waxay tahay mid aad iyo aad u fiican sidaas daraadeed ninkan bandhig cajiib uu sameeyaa buu leeyahay hadaba nadiga kubadda cagta ee Barcelona cushaqdeedu waxa leeyahay jarada Mundo Deportivo wadankaas Spain waxay shaacinaysaa war culus warkana wuxuu yahay heshiis inay la gaartay kooxda kubadda cagta Barcelona xidiga Lautaro Martinez sidaas waxa sheegay Francis Aguilar oo isagu wariye ka howlgala shabakada Mundo Deportivo shabakada Mundo Deportivo ayuu ka howlgala wariyahan Francis Aguilar ayaa la yiraahdaa waxaana isagu sheegay nadiga kubadda cagta Barcelona in heshiis ay la gaartay xidiga Lautaro Martinez heshiiska shakhsiga ee Camp Nou ku imanayo waliba waxa la tilmaamaya 4 sano heshiis in qalinka uu ku duugayo samarkan nadiga kubadda cagta markaas iyadu Barcelona xaq bay u leedahay qodob kale oo markaas lagu daray heshiisko sanadka shanaadna in markaas lagu dari doono oo iyadu xor ay u tahay hadii uu fiicnaadana ay ku dari karto hadii kalena iska deyn karayso Lautaro marka 8 ilaa 10 milyan oo ganiga sterling ayaa la siin doonaa wali waxa dhici karaysa abaalmarina lagu daro lacag kale abaalmarina baa jiri doono ninka la siinayo hadaba warkaas waxa qortay Mundo Deportivo laakiin Lautaro Martinez waxa jira war kale oo Calcio Mercato iyaduna ay ka qorayso Calcio Mercato Talyaaniga laga leeyahay waxay leedahay naadiga kubadda cagta Barcelona
Barcelona iyo waliba naadiga kale Inter Milan waa heshiinayaan laakiin goorma heshiinayaan bay leedahay heshiiskan wuxuu dhici karaa bay leedahay bisha January sanadka 2021 sidaas waxa qabta shabakada lagu magacaabo Calcio Mercato taana waxay Edmundo Deportivo haddaba marka نادي كبدا عكت برشلونة وحلدا مارتينيز وحصورة قلعة إن حدقن وسيجو نادي كبدا عكت إنتر ميلان لا يبيشها مركزي جانوري سنة كعصوب لباكو كويلاتك ساس دراد برشلونة وحقيب كده يدون تبع ليري ميت كم ده حدقه هدوين ثا وحق قبتها شبكة مركز كالشو ميركاتو لكن تاجرش ذو حيدونيا إن هذا والله كانوا عم حوالي قدهن مانشستر يونايتد ولي وحقيب كتبع ليري كوحاو ترتم يحدق دمبلة موسى دمبلة كوحدو كبدا عكت ليون ولي كما يسن يجابين باليري كوحدو كبدا عكت مانشستر يونايتد حدقن بدوني سعيش خبئوه يسايو وريان كوحدو كبدا عكت ليون isagu bedelka Lukaku ayuu noqon doona bal leeyahay hadaba tabra kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer wuxuu arkaa xidigan bandhiga cajiib inuu la sameyn karayo isla markaana Chelsea ayaa si weyn u doonaysa isagu si waxa leeyahay waxa uu doonayaa koox markaas Ingiriiska inkastoo aan la sheegno marka Dembele waa suuragal United marka inuu qaato labaduba wax walba waa iska suuragal Juan Laporta gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona war buu yiri waxaan doonayaa buu yiri anigu Barcelona inuu u soo noqdo ninka la yiraahdo Pep Guardiola Pep Guardiola reer Barcelona ma ilmaamayaan saako ilmaamayaan lixdan hal koob la qaaday waxaas waxa maaragtay mucjiso waaye waa waxa iska caadi maana ma lix saac qaaday baa jirta waa lix koob hal mara ma waa loo day waxa waaye saddex waa jiraan iyo kooxo saddex jeer hal mar qaaday laakiin lix koob wali waxa waaye looma diiwaan gelin kooxan kooxda kubadda cagta Barcelona marka saas ma ku ilmaamayaan waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta Barcelona ayaan markaas doonayna inaan u soo celino ninka la yiraahdo Pep Guardiola sidaas waxa yiri gudoomiyaha hore kooxda kubadda cagta Barcelona ninka lagu magacaabo Juan Laporta Arnoldna waxa leeyahay mucjisadiisa canugan waa laga yaaban yahay waxa uu sameeyo dambeed isagoo ah mucjiso ayuu ka sameeyaa Eurobodil sidaas daradeed dadku waxay ku talinayaanba maadaama xidiga Bale lagu magacaabo isagu uu ahaa xidig markii hore bidix buu ahaa marka ninkan booska laga soo wade garab baa la ciyaarsiiba le maxaa yeelay wixiisu waa William sida Bale garab uu isugu bedelay waxa suuragal marka ninka Arnold isagu inuu isbedeli karayo Manchester 35 milyan ay ku doonaysaa ninka Benfica isagu ciyaara Carlos Vinicius oo arki doonayo kooxda kubadda cagta Manchester United marka waxa la leeyahay xidiga Benfica isagu ciyaara ay doonayaan safkooda inay karaan Carlos Vinicius ayaa la yiraahdaa 35 milyan bay ku doonaysaa gudaha barnaamijka maxaa cusub waa naga intaan ku kulmi doono barnaamijka mid lamid ah salaam